qaran iyadoo doonaysa inay xoogaa u noqoto heerka dhaqaalaheenu marayo taasoo waafaqsan qodobka 61aad ee dastuurka iyo qodobka 3aad ee xeer hoosaadka anoo guud maraya dhaqaale markay tahay waxa ugu horeysa ee dhaqaaluhu ka guntaa waxa weeyaan in cududda shaqaalaha la horumariyo in dadka la maalgeliyo waxbarashadooda iyo tababarkooda si ay u noqdaan qaar hal abuur leh xirfadna leh dhaqaaluhuna halkaas ka soo hoyda dhaqaalaheenu waxa uu afdabar xoolaha nool laba dhibaato haysata mid waxa weeyaan isbeddelka cimilada oo roobkii yaraadeen sidaa darteedna daaqina uu yaraaday ta labaadna waxa weeyaan suuqa aynu geyno oo ku kooban dalalka carabta iyaguna ay siday doonaan ay ka yeelaan waxaa loo baahan yahay ta cimilada in horta la sameeyo ceshiimooyin biyo leh oo xooluhu ku baxsadaan waqtiyada abaaraha caafimaadkoodana laga shaqeeyo ta labaad waxaa loo baahan yahay in suuq ka duwan kan aynu iminka wax geyno la baadi doono taasna waxaa xil ka saaran yahay wasaaradaha arrimaha dibadda ta ganacsiga iyo rugta ganacsiga kalluumaysiga waa khayraad ballaaran oo aynu leenahay wuxuu kaga duwan yahay xoolaha nool isaga suuqiisa lama waayo ilaahayna baddeenna khayraad fara badan oo kalluun ah oo kala duwan buu dhiga waxaa loo baahan yahay in dadka la tababaro oo badda aynu ka shaqaysanno waxay baddu qaadi kartaa 10,000 oo dhalinyaro oo matfuuq fadhiya haddaynu iib geyno innaguna waynu ku noolaanaynaa oo waa cuni karraa caalamkana waynu iib geyn karraa macdantu waxaa waddankeena laga saameeyey inay jirto macdano fara badan oo kala duwan oo dhulkeena ku duugan waxaynu u baahan tahay taasi in loo helo maalgashi iyo aqoon inta badanna waxay naga xidhan tahay inaynu u helno maxay tahay maalgashi caalami ah waxay naga xidhan tahayna aqoonsi la'aan bay naga xidhan tahay waxaa loo baahan yahay si aynu aqoonsi u soo jiidanno maalgashiga inaynu samayno siyaasad deebicsan oo soo jiidasho leh beeruhu weligood way jireen laakiin marna may gaadhin heerkii loo baahnaa oo wax inagu filan ma soo saaraan waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo qoodo dhaqaale iyo aqoon beereed waxaan ku soo gabagabeynayaa dhaqaalaheennu wuxuu ka yimaadaa kasamada iyo cashuuraha berriga kuwaasuna inta badan wadeecay u lumaan waayo xeerkan la yidhaaho 2016 waxa weeyaan horta marka horese xeer aan dhammaystirnayn oo aan golaasha soo marin waana xeer maamul waa tan labaade kuma habboona in lagu shaqeeyo dalkeenna waayo beri hore waxaa jiri jirtay marka hanti dhowrku inuu doonayo hanti dhowro isagoo aanu sheegin buu dul taagi jiray oo dad shariid buu saari jiray shaqadiisa ka qabsan jiray iminka waxa weeyaan xeerkan wuxuu ogolaanayaa in loo digo qofkii la tuhunsanaa oo la yidhaha maantaan ku imanaynaa siduu wixii luusanayay u xaseeyo
dhaqaalaheena miisaanadeennu boqolkiiba 40 ku dhowey way luntaa oo jeebab gaar ah bay gashaa taana waxaa loo baahan yahay in laga hortago waxaa loo baahan yahay musuqmaasuqa hore tagayna in laga daba tago ka soo socdana in laga hortago waxaan soo jeedinayaa si dhaqaalaheenu iyo maamulkeenuba u hagaago iyo shaqada horumarka dalkeenuba inay guddiyaasheenu ay shaqeeyaan oo waajibkooda ay qabsadaan waxaanu talagaraynay in aynu odayaal baynu nahay inaanu gacmaheena hoos u maydhanno sidaasna waataan ugu dhiibnay shirguddoonka waraaqda aanu doonayno inaan ku tusaalayno sida loo shaqaynayo weliise jawaab kama hayno waxaan rajaynaynaa maanta intaan golaha xidhin inuu jawaabta aynu ka helno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu